قرية حبده كجري وكجراه قرية دفاع بوها والباء دفاع بوها هذا سوى حين غنيسا هدي الله كوره يهي إن عيدا كدفاع كبحه وهرا ودقاقه بين غنيسا كدي مركي نيكا maamulka Hargeysa ciidamada u qaabilsanay oo shalay hanjabaad iyo weerar isku soo daray buu isku soo daray xabadaha saaka lagu soo riday magaalada kala duwan oo waaweyn meelo aanay hore u joogin waa soo fadhiisteen oo waa yimaadeen aragnaayo waa ognahay xaqiiqday tagaysaa mudaharaado iyo hadii alla ku rooyahay meelaha Hargeysa waxa laga wadana anagu awal qabiilka iyo xanafta deegaanka waaba ka ilaalinayni Hargeysa nooga horeysay oo qabiil iyo qolo ka dhigtay anagu maamulka Soomaaliland weligayana kama tirsanayn hadeerna wax talaa iyo wax xaaja iyo wax arin oo noo dhaxeeya ma jiro dhulka yagana anaga iska leh dhulka intaanu leenahay ama maamulana waa naqaan waxa weeye ma ogolaanayno ciidamada galbeed laga soo diray inay dhulka yaga joogan ma yeelayno hadii kun ku dhimanayso ma yeelayno nin waliba wuxuu qaadi karo ha qaado habayaan meelaan laagaan xabada laga soo tuurtuuray xabadaha la soo tuurtuuray waa aragnaa diyaar baanu indhahan ku hayna diyaar baanu nahay difaacan ku jirnaa waase ka soo bixi doonaa horaanu u socon doonaa dhibaataduna waxay dhibi doontaa ninka soo duulay bay dhibi doontaa ka deegaankiisa loogu yimi ma dhibi doonto tan kale meesha la isku hayaa berbera maaha burco maaha Hargeysa maaha aynaba maaha walaas caanood dadka dheeraadka ku ah ee soo socda lagama yeelayo ama soo socda ama sii soconina habayaan halkan xabadaha lagu soo ridin magaalada muraadaanu ka leenahay ma jiro xabadaha hawshaasi waa taa waxay yiraahdaan kuwa siyaasiyiinta tabasha jirta waladeero waxba isugu keen jiraan maxaa tabashadu tahay dad wax isugu jiraan oo wax ku heshiiyo wax wada leh baa wax kala tawda wax isugu keen jiraan ma jiraan waynu wada leenahay halkanna taladeeda iyo waxay noqon doonto iyo masiirkeeda cid loo daba fadhiisanaya ma jiraan hadduu ina kaahin waligiiba Muuse Abakor intuu u tago oo Maxamed Abakor haruu baabiyay oo buuhood ugu baabiyay oo maantana Muuse Abakor col ka soo ururinayo taladaadi quruntay baa la gaaray waqtigeedii haba ku tarimayso Maria Calasta reer miyigaad celif weyn iyo garada ka soo urursay Bancade waa ognahay anagu dad deegaanka baa la waayay oo safar ahaa oo reer miyiga deegaanka deganaa baa la waayay nimankaas ay qabsadeen waxay ku sheegi doonaan sidoodii waxay dhihi doonaan ciidamaanu qabanay waa reer miyi xoolo dhaqataa oo jiilaal ku jira diraac ku jira way taasina waa taa inta marka laga yimaado waa tashoonahay anagu hadii alla idin ka dhigo waa tashoonahay Geysa laga sameeyay ee qabyaalada huwan hadii magaalo walba xitaa laga dabaaldego oo la ciidamada iyada duulaanka ah ee gardarrada iyo kibirka ku aaday dhul ayaan lahayn iyo dad aan lahayn kullaynaya 3 bilood loo fantasiyayaasha mudaharaadka loo dhigayo oohin baa ka dambeynaysa run baan idin sheegay oohin la baroorto oo dhulka saa loo galgashaa ka dambeyn doonta waxa soo haray ciidanka duulaanka cidii iskaga tagta maanta ama gacantayada soo gasho waa nabadgeliyay wanaag bay naga helaysaa cidda qoriga la roorayso Soomaa waajibka ay leedahay la marinaya way maqlayaan ciidanka waajibka ay leedahay mariya xeer buu leeyahay dadku dhaqan buu leeyahay diin buu leeyahay intii oo dhan waa la soo dhaaf ma aanan doonin dagaalkaasi inuu gudbo reer miyiga u gudbo ma rabin magaalooyinka inuu gudbo ma rabin wax siyaasadda dhaafsiisan waanu horta wadnay ma jiro Puntland baa halka timi xamar baa timi Farmaajo waranaga Farmaajo markuu madaxweynaha ayna waxba nooma sameyn dawladda Muqdisho joogtana cid noogama iman waanu wax ku leenahay Soomaalida idinkuba wax ugu leedaan wax ugu leenahay waxba noogama iman Puntland maamuladaanu deriska nahay bay ka mid tahay madaxweynaheeda cadeeyay wax saameeynu halka ku leeyahay ma jiro dadka halka jooga waa qabaa'ilkaasina masiirkooda iyo ka iska leh ninay weydiinayaan inay saaka u daba fadhiisanayaan midna ma jiro hadii waligeed baa la mudaharaado hadii la soo urursado iyo dadkii dhulkan iska lahaa way midka ogaada qoliyihiina dhaqanka iyo qaabilsan qabaa'ilka Soomaa ama u sacabtuma ama garnaqo dadkii nicshada labada mid way
haddaydan cishana idinka idin taal waa joogaan dhulka Soomaha ma joogi doonaan ana idin sheegay saaka